Valentine Day imse qof baa maqlay bal gacanta taaga ya yaan weligii Valentine Day maqal waxaan garan lahay yani waxa maalmihii gaalada inuu soo xaadiriyay baan garan lahay Valentine Day gaala waxay yidhaahdeen waa maalinta caashaqa dabeetana falaawarka yara casba la isu dhiibaa bay yidhahdeen waa maalintii caashaqa dee maalin caashaq bay awalgiin maqasheen wax sheegaya wax u dabaaldegayo muslima ilaahay laga cabsado dhaqangaalidka la iska daayo yani nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiista yani icjaaska tilmaamaysa nebinimadiisii waxaa ka mid ah latattabicanna sanana man kana qablakum shibran bishibr wadiraacan bidiraac buu nabigu yidhi sunnadii dadkii idinka horreeyey baa raaci doontaa taaka taaka iyo dhudhundhudhun baa u raaci doontaan buu nabigu ku yidhi markaasaa weliba xadiidku kaaga darana wuxuu leeyahay hadday galaan xujra dabbin god masalugolay yaryar baa jirto godadka gasha god masalugolay hadday galaan waa ka dabagelaysaan god kale masalugolaydu waa wax sida waag de waa meel yaroo madow oo cidhiidh iyo god masalugolay in la gala ama wax macno ku jira xadiidku wuxuu tilmaamayaa wax bilaa macnaha hadday sameeyaan waa ka daba samayn doontaan markaa weeyaan ninkii god masalugolay galay oo waa iyabaa la yidho alyahuudu wanasaara baa lagu yidhi oo yaa kale buu nebigu ku yidhi marna waxaa la yidhaha alruusu walfurus faman yaa kale dee imika waa godkii masalugolay baa ku socotaane war iska daaya yani falantiinkan iyo waxaana sheegaysaan waa godkii masalugolayda uu nebigu yidhi kaa hadday galaan waa ka dabagali doontaan waa la iska daayo maaha waxaasi diine waliba dhallinyaroy dee waxaan eegayay mushkilad baa ina haysataa wargaalku wax fiican buu leeyahay wixii fiicnaaya uu lahaa cid haysa miyaa leedihi gaalku technology buu leeyahay soo aqoon maaha kamaradan imika hortaalla laydhadhka kan waxaan daartan waxaa lagu dhisay qaab kalo waa technology waa cilmi maxaa uskagiisuun innaga ina daba baray inaynu daba soconno oo wixii cilmigaa u qaadan weyne gaalka waxaa la ogolaya in lagaga daydaa waa waxaan cilmiga ah waxay ahayd inaad tidhaahdo gaal baa dayaxgamceed diraye maalinta dayaxgamceedka la diraan isugu nimaadno saynu dayaxgamceed u diraa saynu wax u barannaa saynu wax u soo saraa dhallinyaray kaas bay ahayd laakiin gaal baa isqaawiyey gaal baa falaawar kor u qaaday annaan kor u qaadaya gaal baa habeen boodbooday aan boodboodo aakhirina waa lagugu cadaabaya adduunkana wax kuu kordhin mayso wallahu aclam munaasabad maanta oo kale 14 bisha February loo dabaaldego oo loo damaashaado waa munaasabada loo yaqaano yawmul alxubbi ama ciidul xubbi baa la yidhaahdaa waa maalintii jacaylka ama ciidda jacaylka loo yaqaanaa waana arrin soo jireen ahayd ilaa waqti dheer oo asalkeeda marka la raad qaado iyo xididkeeda u noqonaysa dowladihii hore reer Yurub khaasatan dowladda loo yaqaano Romaaniyiintii ayay ka soo jeedaa waxay samayn jireen damaashaadyo iyo ixtifaalaad shacbi ah maanta oo kale waxay isdhaafsan jireen xalawiyaadka iyo ubaxyada iyo hadiyadaha waxaa la isweydiinayaa runtii munaasabadani asal ahaan markii la raad qaado saan tilmaamayba waxay leeyihiin waxay ka soo jeedaa kaahin ama nin muxuu ahaay say dhahaan qisiis ah oo ka mida qisiisiintii kaniisadda katholiga ayay ka soo jeedaa oo isagoo xabsi galay muxuu ahaayey ayay arrintani ku dhalatay kadibna waxay noqotay halkaa markay ka bilaabatay wixii ka dambeeyey mid ay dowladaha iyo nidaamyadii kala dambeeyey ee Yurub ay qaataan kadibna waxaaba loo bedelayba in laga dhigo munaasabad caalami ah
oo maalinta jacaylka maalinta cishqiga waxaasaa lagu magacaabay waxaa runtii laga maarmaan ah ruuxa muslimka ah ama cid kasta oo caqligiisa iyo maskaxdiisa ixtiraamaya inuu isweydiiyo xaggay ka soo jeedaa mastarkeeda iyo asalkeedu xaggee ka yimid maxaa loola jeedaa ruuxa muslimka khaasatan inuu miisaanka saaro oo yidhaahdo aniga caqiidadayda iyo sharcigayga iyo waxaan rumaysnahay iyo diintaydu maxay ka qabtaa arrintaasi marka waa arrin si fudud dadku ay isaga qaateen khaasatan da'yarta iyo dhallinyaradu ay si fiican u qaateen dad inta badan mujtamaca xumaantiisa iyo inuu inxiraafo dhaqan xun qaato jidka wanaagsan ka leexdo ka shaqeeya oo mujtamacaadka muslimka ka dhashay ayaa aada uga faa'iidaysta oo maanta oo kale iyo caawo oo kale iyo waxay qabtaan meelo laysugu imaanahayo oo muusiga iyo heesaha iyo da'yarta iyo wiilka iyo gabadha iyo yacni dhib badan yacni aad fasaad fara badan iyo dhibaato fara badan ay ka dhacayso taasi waxay keentay marka inaan baraarujinno arrintan iyada ah waxa ay tahay iyo shareecada islaamku waxay ka qabto horta intaanan wax kale u gudagelin waxaan doonayaa inaan tilmaamo asalka usuusha shareecadeenna ka mid ah wuxuu tilmaamayaa jidaynta addoommada loo jideeyo shay ama shay laga reebo ama shay la faro jidayntu ilaahay baa iska leh tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisa khaaskaabay ka mid tahay addoommaduna xaquma ay lahaa inay waxay doonaan dejistaan waxay doonaan samaystaan waxay doonaan jidaystaan hawshaasi waa hawl ilaahay khaas leeyahay tabaaraka wa tacaala ciddii faragelisa oo nidaam iyo xaflado iyo damaashaadyo ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ka soo jeedin ciddii addoommada u dejisana ilaahay tabaaraka wa tacaala xaq khaas uu u lahaa ayuu ku qabsaday oo farageliyey am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh magaalada madiina maalinkuu yimid reer madiina 2 beri bay lahaan jireen oy damaashaadaan oo ciidaan labadii beri nebigu sal lla lay wasalam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinku beddelay 2 maalmood oo idinka khayr badan waa 2 ciidood ciidul adxaada ramadaan ka dambaysa iyo waxaan u jeedaa ciidul fitriga oo ramadaan ka dambaysa iyo ciidul adxa oo carafada ku jirta ciidu carafa aan idhaahno labadaasaa ilaahay idinku beddelay wixii horeed lahaan jirteen nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam waa laydinka beddelaya tuura sidii bay kaga tageen waa qodob labaade maalin iyo habeen ama saacad in camal lagu khaas yeelo oo la yidhaahdo camalkaas iyo maalinkaasi way isleeyihiin iyadana waa xaq ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay oo addoommadu aynan awooddeeda lahayn rabbigeen tabaaraka wa tacaala isagaa maalmaha iska leh saacadahana isagaa leh acmaasha habeenkii iyo maalintii iyo saacadaha la qabanayana isku khaasyeelidda iyo isku xidhidda ilaahay baa iska leh addoommaduna inay farageliyaan waa khalad arrintaasi marka la yidhaahdo maalinka jacaylka oo bisha february ama febraayo 14 ah sidaan tilmaannayba asalkeedu waxay ka soo jeedaa gaaladay ka soo jeedaa reer yurub bay asal ahaan ka soo jeedaa hadday gaalo ka soo jeedo maxaadiir aad u fara badanoo sharciyana way xambaarsan tahay oo ay laasim tahay dadka muslimiinta in looga digo ruuxu wuxuun uun iimaan ah ama caqiidadiisa iyo diintiisa u danqanaya ama xataa caqligiisa ixtiraamaya in looga digo oo lagu baraarujiyo dhibaatooyinka ku jira iyo mukhaalafaadka sharciga ku jira waxaa ka mid ah kow waxaa ku jira taqliidul kufaar walfusaaq gaalada oo
la yska raaco oo waxii iyagu keenaanba aad iska daba gasho. arrintaasina waa arrin ka soo horjeeda asal ka mida usuusha shareecada oo ah shareecadeennu waxay fartay dhaqamada kale ummadaha kale dhaqankooda akhlaaqdooda munaasabadahooda diintooda caqiidadooda inaan khilaafno waa asal ka weyn oo usuusha shareecada ka mida laakiin oo asalka isaga waxaa ku tusaya qur-aanka kariimka ah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu ndurna war dadka mu'miniinta ahow sida yahuuddu ay raacinaa u leedahay oo kale kelimadaasi ha isticmaalinoo raacinaa ha dhihina laakiin beddelkeeda waxaad tidhahdaan undurnaa yacni waxaa loo diidan yahay inay kelimo ay yahuuddu isticmaalaysay macno xunna ay u isticmaalaysay inay mu'miniintu ku kadsoomaanoo waxaa la leeyahay kelimadaasi iyagaa isticmaalay macno xun bayna ula jeedaane ka wareegsada oo kelimo kaloo undurna abaa beddelkeedii la siiyey waxay tilmaamaysaa baa laleeyahay asalka in la khilaafo dhaqamada iyo muxuu ahaayey afkaarta iyo akhlaaqiyaadka ummadaha kale in la khilaafo waxaa nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi man tashabbaha bighayrina falaysa minna ciddii ummado kale isu ekaysiisa oo dhaqamadooda qaadata oo munaasabadahooda qaata naga mid ma aha saasuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam xadiis kalena wuxuu ahaa yacni man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ciddii dad isku shabbahda oo dhaqamadoodiiyo ciidahoodiiyo munaasabadahooda qaata oo siday iyagu yihiin dabagala nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ayagu ka tirsan yahay xadiidka hore wuxuu leeyahay naga mid maaha jidka nagi ma hayo xadiiska dambena wuxuu yidhi hadduusan naga mid ahayn xagee buu ku biiray ayagu ka mid yahay buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isla sidaa haddana isagoo nebigu u hadlay haddana wuxuu tilmaamay ummaddiisa in laga heli doono qaar yacni wax alla waxay ummadaha ku arkaan iska dabagala oo aan isweydiinin caqlina ku miisaamin cilmiya garashana aan ku miisaamin laakiin waxay arkaanba uun iska raaca nebigu wuxu uhi sal ly slam latattabicunna sanana man kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey jidadkoodii baad raacraaci doontaan diraacan bidiraacin wa shibran bishibrin wa diraacan bidirac yacni taaka taako iyo dhudhundhudhun ayaad u dabageli doontaan xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh xataa hadday godka abeesalugaleyda galaan waad ka dabagelaysaan markaasuu saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuul allah alyahuud wanasaara wa yahuud iyo nasaarada nebigu wuxu uhi sal ly slm faman yaa kale xadiiska muxuu ahaayey qaybo ka mida waxaa ku yimid xataa qaar iyaga ka mid a hadday hooyadood jidka bartamihiisa ku qabsadaan qaar muslimka ka mid oo ku raaca oo hooyooyinkood jidka ku qabsadaa la helaya yacni waxa weeya dad muslimiinta ka mid a oo aan waxba kala saarin maskaxdoodu waxba shaandhaynin keliyata uun waan arkay iyo muxuu ahay waan soo gaadhay iyo waan maqlay kadibna iska dabagala oo sida waxay yidhaahdaan shimbirtii la dhihi jiray babaqaada kaasuuku baa la yidhaahdaa waa shimbir dadka uun codkiisa unbay jishaa oo markay codkaaga maqashay qabataa si aad u tiri bay u dhahdaa laakiin iyadu wax kale lama timaado walilasaf dad badanoo waxaa jira uun wixii ay maqlaan iyo waxay arkaan uun qaata wax lama yimaadaan ayagu ma soo biiriyaan wixii ay arkaanna ma shaandheeyaanoo ma kala saaraan laakiin waxay arkaan oo dhan way qaataanoo way liqaanoo wanaag bay u qaataan taasi waa ku jirtaa oo gaalo dhaqankeedii la qaatay weeye waa midda labaade waxaa ku jirta addacwatu ila alfuxsh dadka oo loogu baaqayo loogu yeedhayo xumaan iyo fuxshi iyo zino iyo waxaan munaasib ahayn khaasatan dadka da'yartaa wiilasha iyo gabdhaha arrintaana waxaa tawallinaya dad badanoo magaca mujtamaca muslimkaa ka tirsan oo ka dhashay oo runtii waxa weeye la dhihi karo waa ducaatulfisqi waa dadka xumaanta ugu baaqa ummadda khaasatan da'yarta lugooya waa sida fanaaniinta in badan oo ka mid ah oo maanta oo kale ama caawoo kale waxay qabanayaan xaflado waaweyn oo raqsi iyo da'yartii iyo wiilashiiyo gabdhihii iyo laba yani wiil iyo gabadh isjecel iyo muxuu ahaayey waraaqaha laysu dirayo iyo ubaxyada iyo yacni aad yaabaysa ayagu dabcan laga yaabo inay ka tijaaraysanayaan oo ka ganacsanayaan oo waxoogaa ka uruursanayaan laakiin in badanoo da'yarta ka mida bay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii fasaadinayaan qur-aanka kariimkaana allah wuxuu ku tilmaamay
ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira. yacni dadka jecel inay xumaantu faafto, faaxishadu faafto, zinadu faafto, akhlaaq xumadu inay ku faafto mu'miniinta dhexdooda, alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waxay leeyihiin cadaab xanuun badan, cadaab weyn oo xanuun badan bay ilaah agtiisa ku leeyihin tabaaraka wa tacaala. yacni waxay ka shaqaynayaan inay da'yarta lugooyaan, meelo isugu keenaan, ay isku xidhaan wiil iyo gabadh. waa maalintii jacaylka, waa maalintii cishqiga. riwaayad noocaas iyo film noocaasa loo daaro, kadibna caqligooda la xado, sidaa loo fasaadiyo. arrintaasi way ku jirtaa. waxaa kaloo ku jirta yacni xishoodkii oo lala dagaalamayo ama la burburinayo. nabigeenna sal alla alay waslam waxaa ka sugan inuu yidhi xishoodka iyo iimaanku way isku lamaan yihiin, midkood markuu tago kii kalena waa tegey. haddaadan xishoon lahayn diin ma lihid. ina mima adraka annaasu min kalaami annubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shiit. hadalka murtida ah ee ambiyadii hore laga soo gaadhay wuxuu tilmaamayaa haddaadan xishoonayni waxaa doonta samee. yacni ruux mar hadduusan xishood lahayn diin ma leh, iimaanna ma leh. xishoodkaasaa marka baabkaasaa la jabinaya, baabkaasaa la baabi'inaya. wiilal yar iyo gabdho yaryaroo yani waan ku jeclahay iyo caashiq baa i haye iyo muxuu ahaayey bannaanka la imaanahayo oo yani waxa weeye haddana qaawanaanta iyo curyiga iyo muxuu ahaayey cawraadka iyo aad la yaabayso. waxa noocaasoo kale a marka yacni wax weeyaan waa dacwa iyo baaq iyo yeedhitaan dadka loogu yeedhayo fuxshi iyo xumaan iyo akhlaaq xumo iyo diin la'aan iyo xishood darro loogu yeedhayo. intii yaree sariigtii ku laabnaydna da'yarta la baabi'inaya. waxaa ku jirta sidoo kale almujaahara bilmacaasi, yacni xumaanta oo lala jahro. xumaantu iyadoo hadda uu xumaan wada ah oo dunuubtu dunuub wada oo jaraa'imtu jaraa'im wada ah, haddana markii bannaanka loola soo baxo oo la dhiirrado way ka sii darantah. nabigeennu wuxu uhi sal lla lay slam xadiidka saxiixaynka ku yaalla kullu ummatii mucaafaa ila almujaahiriin. ummaddaydoo dhan waa mid la cafinayo ilaa kuwa dembiyada muujista mooye. meelaha loo kiraysanayaa, lacag baa laga uruursanayaa, daa'irtii baa laysugu yeedhayaa, wiilil iyo gabdhaa isdhexgelaya. maxaa dhacaya allahu aclam, laakiin nasaaha ma jirto laa shaka fii daalika. leanna waxa weeyaan yacni da'yar diin yar oo aan waayo arag ahayn oo meel inta loo kireeye loo yimid oo dhaanis loo ciyaaray oo filim beena loo daaray oo kadibna ayagii laysku sii daayey. yacni waxa weeyaan waa foolxumo weyn, foolxumo weyn waay. waxyaalaha noocaas oo kale ah waxay ku dhacayaan muxuu ahay calaa mar'a wa masmac. waa xumaan bannaanka loola soo baxay, waana miduu nabigu tilmaamaya sal lla lay waslam inuusan ilaahay cafinaynin iyadiyo dadkeeda. waxaa kaloo ku jirta iyadana tadliil alaxdaad, dadka da'yartoo la lumiyo, xumaan oo la jideeyo. nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam man sanna sunnatan sayi'atan facalayhi wisruhaa wa wisru man camila biha min bacdihi min hayri an yanqusa min awsaarihim shay. ruuxii xumaan jideeya oo ummaddu kaga dayato oo ugu yeedho oo lagu raaco, isagana dembigiisa waa leeyahay. in alla intaa ku raacdee baaqiisa soo raacdayna dunuubtoodana wuu qaadanayaa. walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim. dembiyadoodiina way xambaarsanayeen iyo culayskoodii. inta ay luminayeen lugooynahayaanna iyadana culayskeedii way xambaarsanayaan, dunuubtoodii in la-eg. kuwan meesha tagay ee iyagana da'yarta lumaysana nin walba dembigiisa waa leey. laakiin kan odayga ahee kaabbaha ah ee xumaanta ku baaqaya ee fannaanka sheeganaya ee muxuu ahaayey balaayada akhrinaya ee dadka lugoynaya, inta uu xambaarsanayo xuduud ma laha. waxaa ku jirta sidoo kaleeto oo aad halis u ah, mas'aladu waa nooc qasulfikri ah, waa duulaanka maskaxda waxa la yidhaahdo. waa yacni ummado kale waxyaale ka soo jeeda in maskaxdaada lagaa dhaadhiciyo wixii halkaa ka yimaada waa saxsan yah, waxna aadan kala saari karin. reer yurub iyo reer bari iyo reer galbeed wixii ka yimaadaayey waxaa waajib ah maskax kala shaandhaysa inaad leedahay oo wixii xunna aad dhinac isaga tuurto, wixii manafacaadlana aad qaadato, aan caqiidadaada iyo mabda'aaga iyo diintaada ka hor imaanayn. laakiin haddaad noqoto qashinqub, maskax aan shaqaynaynin, waxay aragtaba qaadata,
in maskaxda lagaa qabsado waa duulaanka ugu daran waay in dalkaaga la qabsado hantidaada la qaato dumarkaaga la kufsado waxaa ka daran in maskaxda lagaa gumaysto oo inta wax laguu soo dejiyo uun aad noqoto suuqii lagu suuq geynayay oo inta wax laguu soo sameeyo uun lagu yidhaahdo qaado oodan isweydiininba waxaan maxaa dhib ku jira maxaase dheef ku jira xaggee buu ka soo jeedaa keliyata waan arkay waa la yidhi waa la soo ahaan jiray waa la soo waday waa nooc marka maskaxda gumaysiga maskaxda waa gumaysiga maskaxda runtii halistiisa leh oo muxuu ahaayey ibni aadannimada iyo maskaxdii caqliga intuu ka saaro buu sida xayawaan la hoggaansan karoo kale oo inta xadhig lagu xidho sidii doono laga yeeli karo buu ibni aadamka ka dhigaya waxaan ku gabagabaynayaa oo aan ku khatimayaa oo aan doonayaa inaan soo jeediyo digniin aan u jeedinayo dadka muslimka ah ee diintooda danaynaya ee aakhiradooda danaynaya ee adduunkooda danaynaya ee akhlaaqdooda iyo caqiidadooda ka naxaya baaqaan u soo jeedinayana wuxuu yahay maalin la yidhaahdo maalin jacayl islaam ma laha gaala iskale adiga iyo gaaladuna inaad kala soconaataan oo aad mabda'aagiiyo caqiidadaada iyo akhlaaqdaada aad ku soocan tahay waa asal loo baahan yahay inaad ilaaliso waa arrin la doonayo in mar walba ay miiska saarantoo lagu baraarujiyo da'yarta iyo yacni wax weye muslimiinta guud ahaan khaas ahaan dadka da'yarta oo iska wareersan marar fara badan iska wareersan marka yacni waxaan doonayaa inaan baaqaa u jeediyo waxaan doonayaa inaan baaq u jeediyo sidoo kale dadka shaqada ka dhigtay inay ummadda akhlaaqdeeda iyo diinteeda ka ganacsadaan oo intay wax u soo abaabulaan waxoogaa ka uruursadaan maalmo ay ciyaarsiiyaan mahrajaanaad iyo waxaan waxba ka jirin oo luminahaya intay u sameeyaanoo waxoogaagii jeebkooda ku jiray ka daadsadaan diintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankooda burburinaya ayagana waxaan dhihi lahaa in badanoo idinka mida waa dhinteen maanta ilaahay agtiisay tageen oo qabrigay galeen in la soo warsadana waa ficnaan lahayd idinkuna waxaad ku talagelaysaan adduunka waxaad doontaanba sameeye laakiin maalin baad leedihiin waxaad idin dhihi lahaa qabrigiinna ka fikira oo qiyaamadiinna u naxa oo rabbi baad hor istaagi doontaane ku xisaabtama oo naar iyo cadaab baa jiriya xisaab rabbiya ku talagala khalqigan ilaahay tabaaraka wa tacaala ee addoommadiisa lumintooda iyo baadiyayntooda iyo fuxshiga iyo xumaanta iyo dhaqanxumada iyo akhlaaq xumada ducaad ha ku noqonina ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala ummadda diinteeda uga baqa shayaadiin ha ku noqonina ummadda shayaadiin xumaanta iyo fasaadka ugu yeedha ummadda ha ku noqonina haddii kaleeto adduun iyo aakharaba sidii kuwa badan ku dhacday baraka la'aan iyo diin la'aan iyo akhlaaq la'aan iyo khaatumo xumo iyo meel xun baad ku dambaynaysaan ilaahay tabaaraka wa tacaala towbadda hana waafajiyo qalbiganagana ilaahay tabaaraka wa tacaala xumaanta ha ka ilaaliyo da'yarta muslimkaa wiilashiiyo gabdhahana allah xifdiyo ninkii xumaan la doonaya oo fasaad la doonayana ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu hanuuniyo hadduu hanuun u qoray hadduusan hanuun u qorinna ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ummadda ka qabto oo uga raaxeeyo ayaan alla weydiisanaynaa kelimaadkaasaan jeclaystay inaan baaq ahaan ugu soo gudbiyo ummadda muslimka ah oo maanta iyo munaasabadan hadda aan joogno fasaad fara badan ilaa iyo caawa la doonayo in muxuu ahaayey laga sameeyo ama loogu yeedho ama muxuu ahaay laga fuliyo hada wabillahi towfiiq wasali allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wala alihi wasaxbi wasalam baa ka dhiman ilaa 3 saacadood qiyaastii 14 in loo gudbo munaasabad kasta sanad kasta markay soo marto 14 bishan sanad guura iyo dabaaldeg baa la isu diyaariyaa dadka dabaaldega gelayeyna hadda waabay usi diyaarsan yihiin waxooda oo diyaargarowgii iyo bugbacdii baa la diyaarinayaa ciddii suuqa ee ganacsatada ka ganacsanaysayna waxaan filayaa waxay ka ganacsan lahaayeen waa u diyaar maalintaas la magacaabay dabcan magaca la sheegay haddana loo yaqaano nin baadari oo talyaani u ahaa baadari talyaani oo kristan u ahaa laakiin taariikh ahaan waxay yidhahdaan way ka horreysay munaasabadda bishan 14-keeda 13-keeda 15-keeda
saddexda maalmood ama mid kamid a ama laba kamid ama saddexdaba ama ha wada socoto si xiriira ama mid kamid a ha dhacdee waa wax kasoo jeeda diimo kale kasoo jeeda wey. on markii taariikhda dib loo akriya dadka roomaanka iyo yurubiyaanka saldhigooda hoggaankooduna in badan uu ahaan jiray magaaladan roma ee Italy. magaalada waxay u yaqiineen magaalo muqadas ah oo barakaysan. ciddii dhistayna cid muqadas oo la barakaysto oo la weyneeyey ahaayeen. cid kastoo la yidhaahda waxbay taaratay iyaga waxbay u tartayna cid muqadas ah oo iyadana la weyneeyaa laga dhigay. roomaanku intaynan kiristanka noqonin ama nasaarada aynan qaadanin waxay ahaayeen dad wathaniyiina. dabcan rome iyo eryadeedana dowlad boqortooyaa ka jirtay oo dee xugun ilaashatoo boqorro iyo lahayd niman madax ka ahaa. waxay yidhahdeen magaalada markii la aasaasayay 2 nin baa aasaasay oo 2 wiil oo dhalinyaro ahaa. labada wiil iyagoo geed hoos jooga ayaa yey u timid ama ay dooreed midaad tiraahda. dabcan wixii laga filayay inay cunto ahayd waxay yidhahdeen maynan cunin ee way nuujisay. iyadii baashii yeyda ahayd baa la barakaystay oo Lysios baa la dhihi jiray bay yidhaahdaan. iyadii way barakaysan tahay baa la yidhi maadaama yey wax cuni jirtay ilma ay u qalbi dabacdayna ilmihii bay jeclaatay. ilaaha jacaylkay u bixiyeen roomaankii wathaniga ahaa. markii ilaah sanad guurada maalintii waxay yidhaahdeen ay nuujisay baa 15 bishan ku aadanayd. qaar 14 yidhaahdeen qaarna 13 yidhahdeen. 3daa beri baa ilaaha jacaylka loo dabaaldegi jiray. ilaahay jacaylkana waxaa loo bixiyey magacii la sheegay inay yeydaasi lahayd ee Lysios la dhihi jiray. qurun badan bay saa kusoo dabaaldegi jireen. diin iyo ilaah la caabudo ilaaha jacaylku noqday. wuxuuna ku salaysnaa dee baasha yeyda. arrintii raad baa weli ka hadhay ilaa hadda kaararka jacaylka la ysu diraaye bahalkan carabiga dubbiga lagu yidhaahdo ama soomaaliya madax ku tira ay tiraahdo baa ku sawiran. bahalkaa foosha xun ee nacabka iyo wax cunay iyo jacayl iyo qalbi dabeec laysu dabcay oo laysjecel yahay dee meeshay iska soo galeen. asal ahaan waxay yidhahdeen halkaasay ka soo jeedaan. si kastaba ha noqotee roomaanku qurun bay ahaan jireen. qurun bayna ciidda ilaaha jacaylka u dabaaldegi jireen intaanan u wareegin kiristanka iyo nasaarada aanay u wareegin. muddaday intaa ku jireen yar bay u qaateen bay yidhaahdeen kiristiyaanka. dadkii qaatay baadariyadii qaatay mid kamid a waxaa la dhihi jiray valentine la dhihi jiray ama labaaba la dhihi jiray yidhahdeen. laakiin ninkaa ugu magac dareen qaybtii dambe ee qarnigii 3aad markay kasoo wareegtay dhalashadii ciise calayhi salaam isaga ku qiyaaseen 269 ilaa 270 14 bisha February baa la dilay bay yidhahdaan. sababta loo dilay maxay ahayd? mawsuucadan ama daa'iratul macaarifkan catholic ay leeyihiin sheekooyin wax badan oo sal oo la raacana aan lahayn laakiin de hawaska iyo beenta ay qori jireena oo iska qoray ama nin baa isaga riyooday ama nin baa saa iska yiri ahayd. waxay ku qoreen 2 sheeko baa ugu muhiimsan. waxay qoreen mar waxay qoreen nin boqoraa jiray oo wathanigii ahaa saldhigiisuna Roma ahaa. Claudius baa la dhihi jiray. ninkan oo Valentine la dhihi jiray buu maqlay inuu diinta qabsaday. wuu la sheekaystay. uu yeelay waa la sheekaystay. nin fiican buu la noqday. inuu kiristaanka ka laabto oo diintiisii wathaniyeed ku laabto oo geliyuu isku dayay. kana waa diiday. isna wuxuu isku dayay inuu boqorku kiristaanka qaato. markii la ismari waayey buu amar ku bixiyey in la dilo. maalinkan laga soo bilaabo shahiid bay u bixiyeen oo diintiisiibuu naftiisa u huray. oo kiristanku shuhaadadoodii magaca shahiidka ah bay waxay u isticmaalaan qidiis bay u isticmaalayeen. oo kale qisiis buu ahaa. markii saa loo dilina qidiis buu noqday bimacnaa shahiida. wuxuu u dhintay diintii buu u dhintay. sheekadaas dee jacayl waxba xiriir lama laha. waxay isku dayeen sheekada qaarkeed
inay meel ka soo geliyaan. markay sheekadaa sheegeen bay qisaska qaarkood ka soo geliyeen. waa la xiray intii aan la dilin. xabsiga waxay isku barteen gabadh xiran oo indhool ah oo u dhalay ninka xabsiga mas-uulka ka ah. gabadhii wuu duceeyey, wax ku akriyay oo way caafimaaday oo indhihii baa furmay. maalinkii la daldalayay isaga la dilayay 14 bishii February ahayd buu warqad yar u qoray oo leeyahay waan ku jeclahay, waxay kaaga timid maye Valentine oo aad daacad kuugu ah. halkaasaa kaarku kasoo bilowday bay leeyihiin, iyo maalinta 14 kiristanku inay isku wareejiyaan. dabcan markay kiristan dadkii noqdeen caadadiina laga fuqi waayeyba shaatigii wathaniyadda in laga saaro oo shaati diin kiristan loo huwiyo baa la isku dayay. qole waxay dhahaan sidaas ma ahayne ninkan Colodiyosa ciidankiisii baa dagaaladii ciidankii wax isqoro badan baa la waayay. markuu baaritaan sameeyey waxaa usoo baxday inuu guurku qayb ka yahay waxaa diidaya, oo raggii markay xaas yeeshaan in ilmihii iyo carruurta inay ka tagaan oo meel cidla kaga tagaan oo ka dhintaan aanay rabin. markaasuu wuxuu soo rogay wareegto ah in guurka laga mamnuucay raggii dhalinyaradii. ninkan baadariga ah hoos isaga guurin jiray oo kaniisadda si hoose ugu meherin jiray. kadib baa la ogaaday, arrintii baa loo dilay. maadaama dadka israba dawladda uu ka qarin jiray oo isu meherin jiray, halkaana jacayl bay kasoo geliyeen. kaarkana sheekada laba sheeko kala duwan baa marka la isku lamaaneeyayo kaar buu qoray, kaararkan la qaybinayaa laga dhigay. jacayl bay ahayd, mukhlis baan ku ahay iyo waxbuu hoos isaga meherin jiray. si kale haddii loo dhaho waxaan dhihi karaa khudbasiradii iyo meeraxad buu hoosta ka samayn jiray, khudbasiru samayn jiray. waa sheekada hadday jirto. waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo kaararka iyo waxyaabahan midabkan guduudka iyo dhiiggani xaggey bay ka yimaadeen in lagu lamaaneeyo. iyadoo kiristaanka kama soo jeedo, laakiin wathaniyadii ka horreysay markay sanad gurada dhigayaan astaantooda guduudkaa ka mid ahayd. ay baa la qali jiray iyo neef adhi ah. laba dhalinyaro oo si fiican murqahooda jirkooda dhisan yihiin oo jiim iyo aad wax u soo bartay baa dhiiggaa lagu daadin jiray. weella waa lagu shubi jiray. baalahan saynta eed wax lagu tirtiro oo kaleeto baa lagu dhex ridi jiray. dadkuna waddada hareeraheeda ay safan jireen, sidaasay ugu sayri jireen. waxay ku saydhaan inuu barakaysan yahay baa la rumaysnaan jiray. haweenka dhali waayey iyo gabdhaha yaryar baa jidka isu dhigi jiray. islaantay ku dhacda inay dhali, inay nasiib wanaagsan iyo gul wanaagsan heli, waxsaasay rumaysnaan jireen. guduudka iyo dhiigganina halkaasuu asal ahaan ka socdaa. markay kiristan noqdeen roomaankii, ciiddiina dadku yaqiinayna ay bedeli waayeen, bay shaati inay u xiraan, inay shaati u xiraan diimeed oo dhalinyaradii diin kiristan inay ku cibaadaysanayaan uga dhigaan. bay ninkan oo arrintaa loo dilay oo waa hore la aasay bay soo noolayeen sheekadiisayo Valentine's Day baa loo bixiyey marka, si ti kiristana looga dhigo wathaniyadii looga saaro. muddo markay joogtay ilaa hadda qarnigii 19aad bartamihiisii 1969 laga soo gaaro, xilliyada laga soo gaaro aad bay uga fara baxday. sanad guurada zinada la xusay noqotay. sanad guurada zinada abriil 1 beentaa loo sameeyey. tanna jacayl maadaama loo sameeyey zinadii baa xarka goosatay. qoliyii kaniisaddu intay isu yimaadeen katholigii waxay dhaheen war waxaanay diinteena ceeb ku tahay, aynu ka saarna khadka diimaha, ciidaha diinta aan ka saarno. goon waxay ku gaadheen inay ka saareen oo ciid diinid aanay ahayn. waxay uga saareen dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada iyo magac xumada diintoodii iyagu bedeleen ee kiristanka ay u soo jiidaysaan dhibtay. adigoo muslim intee bay kuu soo jiidi marka? wax la yaab leh. horta wuxuu wax sidaasa weeye. laba rabad baan rabaa inaan gaadho marka, saddexdaba inaan natiijada idin gaadhsiiyaan rabaa. kow, waxaani asalkiisu diin wathani oo roomaanku lahaa buu kasoo jeeday. markii labaadna wuxuu kasoo jeeday oo shaatiga u xidhay oo diin ciid ka dhigtay diin christian buu kasoo jeeday. waxaani haddaba waa ciid diimo kale kasoo jeeda. taariikhaan inaad saa ogaataan daayarta muslimka. mid labaad, aakhirkii waxay ku dambeysay diimihii kiristanka ah ee la bedelay ee baadariyadu ka shaqaysteen baa magac xumadeedii iyo akhlaaq xumadeedii intay u adkaysan waayeen diintoodii uga baqeen
bay iska saareen oo iska caydhiyeen oo iska saareen iyagii samaystay baa akhlaaq xumo uga cararay oo mid saddexaade sheekadan waxaan lagu saleeyey haddii la dhihi jiray casri cilmi iyo caqli wax lagu fiiriyaa la joogaa wax cilmina ahna ma aha wax caqli geli karana maaha yay baa nuujisay laba caruura ilmo nuujisay markaasay baraka ka heleen waar dadkii dee qur-aanka iyo sunnadu caqligu ma keenaya dhihi jiray tan xaggee caqli ka keenay caalamkana waxaan ka iibinaya tan maxaa caqli xaggaa ka keenay yay baa jeclaatay ilmood way jeclaatay caanay nuujisay way nuujisay haddee nuujisay in la ciid laga dhigo ilaah jacayl laga dhigo caqligee keenay caqli ma jira meeshan caqli jacayl baa la sawirayaa wax yar baa la sameynayaa oo boombalaa wax baalala laga dhigayaa caqligee cilmigee eber waay baalkii dubbigiiyo madax ku tidii wax walba cuni jirta oo barafka intay gasha xataa wax ka soo bixi jirtay dad iyo dunyaa waxba aan beriinaynin iyo jacayl qalbi jircisan baa kaar la iskula lamaaneynaya caqligee waxaan cilmina maaha caqlina maaha akhlaaq iyo diinna maaha saxan wax diimo kale kasoo jeeda iyagiina akhlaaq xumo u carreed caqli ahaana sakhaafo iyo khuraafada qaldana daayartiiyo dadka muslimiintu waxay wax u moodaan ma saxna intaa waxaa dheeroo suuq geliyay ganacsato waa munaasabada labaad ee ciidda kristanka ee markii la yidhaahdo chrismasta laga soo tago kaararka ugu badan la iibiyey bilyaniska la iibiyo waay niman budhacdoo ganacsato ah baa waxaan ka shaqeeyay markii hore meelaha ingiriiska lagaga hadlaya dowladda ingiriiska fiday iyo irishkii dunida ku fiday bay ka hergashay markii dambena duni badan muslimka xataa qabsatay marka waxaani waa maalin fuxshi waa maalin zino waa meel erayo xuna waa maalin kaniisadu akhlaaq xumadeeda ka carartay wey intaas kadib waxaan rabaa inaan iraahdo dadka muslimkii waxaan uma baahna dad haddii laga hadlahayo guur iyo isjacayl anshax iyo aadaabtiisa la ilaaliyey asal intii wanaagsanayd waa inta islaamku sheegay inta xun markii lagu darayna waa waxaa kaniisadu ka carartay wuxuu dhalay reerka isguursanayay asaas waxaa waa laba qodob jacayl iyo naxariis wajacala baynakum mawaddatan wa raxma nabigu markuu hadla guursada dhihi jiray ragga uu la hadlayeyna wuxuu yihi tazawaju lwaduuda alwaluuda fa inii mukaahirun bikum lumama yowma alqiyaama kuwa dhalaya ee idin jacayl guursada markii loo keenay gabadh iyo hooyadeed nin dhalinyaro ah raba adeerkoodna oday waxoogay jeebka ku wata oo rabo nabigu waa ka yidhi lam yura lilmutaxaabiina mithlu zawaaj jacayl laba israbta guur wuxuu kaga fiican yahay ma laha guur laba isjecel oo israbta yuu ku fiican yahay marka intay gabadhi u timid ninkeedii ay tiri diin iyo dabeecad midna kuma ceebeynayo dhaliil kuma laha ninkuna nin janno loogu bishaareeyay waa adduunka isagoo jooga thaabit ibni qays ibni shamaas laakiin waan arkay qalbigaygaa ka go-ay markuu dhab inay tahay ogaaday nabigu wuxuu yihi jacayl badan buu ku jeclaayo xoolo badan buu ku siiya mau celin haabay tiri wuxuu yihi kaalay gabadha xoolaha qaada gabadhana fasax qolii qoorqabad biyo kuma cabto walidaalika cumar radi allahu canhu wa ardaahu xilligiisii waxyaabuu wareegtooyinka soo saaray ee diidi jiray waxay ahayd gabdho yar yaroo rag waaweyn oo waayara loo guurinayay ka daayuu dhihi jiray qisaduna waxay ahayd gabar intii nin saasa lagu qasbay dishay baa hadal fatwada cumar sabab u ahayd siday aathaartu warinayaan nabigeena sal allau alayh wasalam nusuustiisu ragga marka lala hadlayo dumarka marka lala hadlayo ninka markuu guursanayay muqadat ibnu shucba u yimid yihi gabadh baan reerkoodii weydiisay reer ansaareeda wuxuu yihi ma soo aragtay wuxuu yihi maya orod soo arag fa innahu axraa an yuudama baynakuma inaad reerku jiro aragtiday ku fiican tahay orod markii gabadha ciddada ku jirta la mamnuucay in lagala hadla guur si toosa si dadban inaad rabtay in loogu sheegto walaa junaaha calaykum fima caradtum bihi min khudbati nnisaai aw aknantum fi anfusikum tacriirka iyo sarbeebtu waatay culimmadeenu yidhahdaan tafaasiirta markay aadan ka hadlayaan dadku jecel baa badan dad badan baa safka ku jira waa lagu wada sugayaa dee hana halmaamin
dee naga warqab. Guriga marka la wada joogana xataa iyadoo marka laga yaabo duruuf iyo baahi inay jirto oosan daacad ka ahayn ninkiiyo naagtuba inay been isu sheegaan inay isjecel yihiina xataa loo baneeyey. dabcan qoyska beenta banaani waa laba shardi marka la hela yidhahdeen culimadu, in xaq kale aadan ku goosanaynin, xaq lagu lahaan aadan ku duudsinaynin, wixii reerka ku jirayo oo u badan turjumada laga turjumaya niyad wanaagga iyo jacaylka laysu haya beenba ha noqdee waa la ogolyahay si uu reerka wanaagga iyo kalsoonida ay u jirto. intaasoo dhan waxay ka turjumaysaa haddii wanaagga iyo kalsoonida iyo jacaylka jiritaankoodu uu yahay mid u gogol xaadhaya guur wanaagsan, mid saldhig u noqonaya guriga iyo reerku inuu jiro oo uu isa sii haysto oo sii dhaqmo, waata sharcigu soo dhaweynayo. midka bugta ah ee gabdhaha da-yartaana lagu siro, dembiga iyo xaaraantana lagu galana waa midka shareecadii rabbi diiday. markay habeenkan maalintan oo kala badatayna kaniisaddu xataa ciidda iyadu lahayd ee quruntu soo waday ay ka beri noqotay. saa darteed waxaan rabaa halkaan oga dira baaq dhammaan da-yarta iyo dhalinyarta iyo dadka muslimiintihi, diin ahaanna diintiini maha, waxani waa diin kale. akhlaaq iyo dhaqan ahaanna kaniisadda iyo kristankii baa nacay dhaqan xumada iyo akhlaaq xumadeeda. wax ka wanaagsan oo badiilo wanaagsan oo badan baad haysataane ilaahayna ka baqa, waxaan xumahana iska daaya. meelaad joogtaanba dhammaan waa mahadsantihiin. jazaakum allahu khayran. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi.